nin aan saaxiibanahay Soomaali ma ahayn baanu meel markaas wada joognay carrada gaalada maalin duhurkii buu dumar wuxuu akhriyay ana xafiis fadhi Umdatul Ahkam wuxuu akhriyaa kitaaba Umdatul Ahkam ala yaabaa in badan ka mid ah waa kitaab fudud oo la wada yaqaan xadiis baa ku daba gadoomay ninkii oo dhidid ku yaala kurbaysan xafiiskii ugu soo galay waan naxay waxaan ku ninka maxanuunsan yahay maxaa dhacay nin waxba ilaahay tusay buu maanta maxaa dhacay waxaan fiiri waxaan kacadi tuu taabtay kasaan ku waxbaan qornay war akhri waraan afkayga ma soo marin kare waxaan fiiri waxaan wuxuu yahay waa yaabo waxaan waa xadiis la leeyahay fiiri بلوغ المرام بوها كتاب عمرك محص ويا حديث كيبان فيري وعادي عارك ما حد يبغى يشران كوري هذه آخر يقول واحد وحنقول حديث كمان آخرية هل كثرتكوا واحد شيء يسألون ما حليا ما أرجع يتعب وحال كان فيري هل كان ما حد يبغى كوري دي ما يتعب ما أنا وش يعني حنقول محاضر ملايسي محاضر فهمت وروح النبي وكم هذا اللي كراوير عيتوي عيت عراتن كسنة حنقول ساعة عراتن كتر بكاش كسيدايدي على فكرة سو مريكير حديثكم حال لأن يرجع أحدكم بيمينه في أهله آثم له من أن يكفر عنها نينكو حاسكي سي غوري سينوي ما اسو غفور كتورا يو عاريسانو waxaan ku dhaartay inaan la hadlaynin oo afka tuuro oo si jeedsado oo dhaartaydii ma jibinayeen baa ka dambi badan inuu dadkiisana la hadlayo reerkiisa iyo xaaskiisa kafaara gudna sameeyo dhaarta jib kafaara gud samee taasa kaaga dambi yar dhaart waan dhaartay afkan tuuraya xadiiska intaas ka hadlay yari jadi min wala jawb la noqot biyabiriina gacad dhaarta hayna gacad midig bela noqot ninku xaaskiisina gacanta midig geliyo saasay la noqotay ninka waxa soo dhigi karaa nabigu waxaan inaan naxdin iyo qosol baan u dhaxeeyay mar waan farxay oo inuu soo marayo intuu dhaafo haweenkii u tago isoo waxa akhris uga dhigin ma la yaabay baan ku farxay marna waan naxayo war ninkan sidan ee dad hadala wuxuu akhriyay tolow kani طب محو فسادين دورا بنسري وحنقول ورصاص ما هي ماشان في باب الايمان داروي يمينه قعن مدي ما داروي يرجنا من ولد جماه لجه وكما حدايغي وي انو كو ادكايست دارتي وي ان كنتون نحي وكرسي ديب ugu fariisto qaboobay wuxuu yiri 10kii maanta ma akhrin kare xaalad ba ku jiray hal iga fasaxo حالات waxaa ku dhacay inhiyaar isku dhaxyaa waxay markuu joogaba waa shahaadad markii waa ku dhacay dadka shaahu kaara ku maxaa ku dhacay waxaan is arkaabu yiri anigoo intaan tagay meeshii wixii sheegay waxay markaa joogaba ama wixii baa soo bixi